بسم الله وتلادو 26 أغسطس تريدكani live-ka way sida aragtaan oo hadda si live aan ugu jirno goal isal baa ugu jirnaa 25 bii way isalkeena 50 bii waa full targetkeena insha Allah waa 2RR waxaan rajaynayaa insha Allah inaan trade-kan win gareyno waana trade-kani labada maanta trade-ka hore loss baan qaadanay oo maaragtay suuqa buy baan ugu jirnaa xaggan sida arkaysaan waa kana 22 bii buu ahaa oo iska yaray isalkeena marka isal buu naga saaray oo guud ahaan suuq waa iska rinjin fahmaysaa dhaqaaqiyo fiican ma uu sameynayo buy fiican baa ka rajaynayna laakiin isal buu naga saaray soo hadda marka silkaas valid oo high probability marka buy-ga loo fiiriyo taxliilinteena ama sababkan ku trade gareynayo so that hadda silkaas ugu jirnaa insha Allah waa isla arki doonaa waxa uu ku dhamaado biinillah so hadda sida arkayseen dharow down oo lagu qabto xoogan iminka waa laga soo saaray suuqa break fan buu joogaa marka insha Allah still trade ku hayn doonaa in isla aragno so alxamdulillah sida arkaysay hadda suuqa TB1 keenu joogaa 24 bps marka hadda trade-kan break fan baa insha Allah ku xireena so let's go insha Allah aan aragno insha Allah waxa uu ku dhamaado gaab ku jira moogtahay marka masalana inuu candle-ku waxa uu xawligiisa uu ku sii socdo hadda 1 minute still u dhiman so haduu kan naga saarin xitaa the next one insha Allah saan ha noogu xiro the next one uu naga saari karaa biinila TB-gana kadib waxa uu suuqa duu rabo gaabka haka reverse gareeyo dhimalaha laakiin aragna insha Allah so alxamdulillah ugu dambeyn sida arkaysaan full target hit TB so marka trade-ka insha Allah asaas ku win gareyna live-kan intaas ku egyahay nabadgelyo saaxiibayaal